si aan xal uga helo dhibaatooyinka soo noqnoqday ay bukaanadu kala kulmaan xarumaha adeegyada caafimaadka u doontaan ayaa waxaan su'aalihii ugu adkaay dhanka caafimaadka weydiin doonaa Dr. Mariin Cabdullaahi Daahir oo ku dhawaad 9 sanadood ka shaqeynaysay adeegyada dhanka caafimaadka isla markaana aqoon durugsan u leh daaweynta iyo daryeelidda bukaanka iyo xakamaynta iyo la dagaalanka cudurrada. inta badan dadku marka ay maqlaan goob caafimaad waxa maskaxdooda ku soo dhacaysa in kish dawooyin loo soo rarayo oo markay dhakhtar tagaan dawooyin loo soo buuxinayo dawooyinkaas oo ay inta badan dadku ka caawdaan inaana waxba tarin lagana yaabo dadka qaarkood in dawooyinkaasi dhibaato kale ku keento arinta maxaad ka jawaabaysaa qof aanan xanuun baqabin hadaad dawo siiso dhibaatada waxay leedahay inaad adigu sababtay xanuun taas waxa sababta oo inta badan riixda caafimaadka dadku sida u doontaan ama waxa la yiraahdo health seeking behavior-ka dadka Soomaalida health seeking behavior-ka dadka Soomaalida waa weeyar unique weeyaan laba shay bay ka doonayaan dhakhtarka kow in ay qof dhakhtar horta arkaan nurse iyo midwife iyo ama umulisa iyo ama gabadh kalkaalisa waxa ma doonayaan arkaan ama qof psychologist hospitalka waxa jooga multi speciality ama dad kala duwan baa jooga dhakhtar kaliya ma joogo dhakhtarkuna wuxuu qabtaa hawshiisa wuxuu qabtaa in isagu 30% weeyaan hawsha dhakhtarka ee caafimaadka 70 kale waxa buuxiya waxa la yiraahdo allied health ama maxaa la yiraahdaa professionals kale oo ama nurse ha noqoto kalkaaliso oo mulis oo lafta marka goob caafimaad waa meel lagu daweeyo laguna taliyo bukaha balse su'aashiis weydiinta mudani waxa ay tahay iyadoo ay jiraan dad badan oo magaca dhakhtarnimada waqtigan ku shaqeysta maxaa lagu garan karaa dhakhtarka ku habboon daaweynta iyo daryeelidda bukaanka waatan Dr. Mariin oo mar kale si kooban u sharaxaysa waxyaabaha looga baahan yahay dhakhtarku hadduu eegi waayo wadnaha garaaciisa dehydration-kaaga wadnihii dhageysan waayo sanbabadii dhageysan waayo oo saanta ku eega adiga halkaas ay kala fognay markaa maxaa ku hay caloosha xanuunaysa soo qaad waxa caloosha baadha kaasi ma aha dhakhtarba anigu mariyahan waxaan aaminsanay ma aha dhakhtar wayna dhacdaa 100% Soomaaliland maanta inuu dhakhtarku xitaa ku soo eegin faraqo maba ku soo eegayaan dawadina way ku qoriyaan dhakhtarka waxyaabo badan buu wax ku ogaadaa wuxuu ku ogaadaa ma aha only shaybaad iyo dhiig laga qaaday laakiin waxa la yiraahdo physical examination waxa weeyaan in uu 70% dhakhtarku wuxuu ku go'aan qaadan karaa in uu isagoo waxba ku diray ishaadu eegaya afku eegaya wuxuu qaadayaa maxaa la yiraahdaa dhiiga cabirkiisa wadnaha garaaciisa la eegaa anuu malayn ma imkan dhakhaatiir badan eegaan baa wadnaha garaaciisa meelo badan baa laga eegaa halkaas ugu horeyso ma jiraan dhibaatooyin ay dhakhaatiirtu kala kulmaan dadka adeegyada caafimaadka u doonta haddii ay jiraan sidee loo xalin karaa waa su'aasha ugu dambeysay aan weydiiyey Dr. Mariin Cabdullaahi Daahir Soomaalida marka yimaadaan horta qof dhakhtaray doonay arkaan dhakhtarkii meeyay even nurse-kii koornay dhakhtar cleaner-kii dhakhtar bay kooranayaan qof kasta oo dhakhtar horta talabaad waxa dhakhtarka hadduu buug wax ka eego dhakhaatiirta adduunka waa la isku qabsadaa dhakhtarku inuu dusha ka qoro dawada dawa inuu ku ag yaala 2 buug 3 buug oo dawada ka eegtid qofkan waxaad ka heshay qofkan kale waxaad ka heshay isku mid ma noqonayaan isku dawo ma noqonayaan qofkan uu dheer yahay qofkan uu dhuuban yahay qofkan uu buuran yahay qof kastaba miligram gooniye marka Soomaalidu waxay leeyihiin qofkan dhakhtarkan ima wadarinba shaybaad si uu dawo igu qora dawada way daadanayaan dhakhtarkan waxba garan maayo buug ka eegaya marka dhibaatooyin badan baa jira ay culture kuna sameeyaan laakiin dhakhaatiirtuna ay tahay inay ka taxadiraan qof kasta oo ay gabadh ah oo dhakhtar tagta waxa laga helaa infection-ka maxaa sababa infection-ku ma aha cudur gooniya oo sidiisa u taagan oo infection la yiraahdo qof aan infection haynin hadii dawo loo qoro infection muxuu qaadayaa